kulan wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu waaweyn qodobada aan idinkuga helna waxaa ka mid noqonaya macawisleyda gobolka hiiraan uu sameeyey arrin cajiiba oo maanta ka dhacay jiidda hore ee dagaalka. Xog iyo faahfaahin ayaan idinkaga haynaa. Qodobada kale waxaa ka mid noqonaya xamaas iyo israa'iil oo maanta isdhaafsaday maxaabiis. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud muxuu ka yiri magacaabista madaxweynaha cusub ee suuriya. waan idiin soo gudbin doonaa haddii allaha awoodda la idmo. Qodobada kale waxaa ka mid noqonaya SCC iyo sidoo kale Somaliland oo mar kale isfara saaray iyo xaaladda oo kasii daraysa. Qodobada ay wixii nagu soo kordhaa ayaad saaxiibayaal halkan ka daawan doontaan. balse marka hore saaxiibayaal waxaan idinka codsanayaa haddii aad nagu cusub tahay inaad subscribe inoo saarto si halkan aan saaxiibo ugu noqono. Haddii aanu ku bilaawno gobolka hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, waxaa mar kale dib uga bilowday kacdoon culus oo ka dhan ah al-shabaab oo ay sameynayaan macawisleyda iyo sidoo kale ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya. Waxaana dib boorka looga jafay ciidamada deegaanka oo iyagu markaan bilaabay inay dagaal la galaan al-shabaab. Waxaa howlgalkan door muuqda ka qaadanaya macawisleyda gobolka hiiraan oo mar kale u istaagay in deegaanadooda ay kula dagaalamaan al-shabaab, gaar ahaan goobaha ay ku sugan yihiin. ciidamada macawisleyda ayaa maanta sameeyay arrin cajiiba, waxaana la arkay dhalinyaro ka mid a dadka deegaanka oo aan hub wadan isla markaana xaadiray jiidda hore ee dagaalka si ay ugu biiraan. Arrintan ayaa yaab ku noqotay dad badan oo iyagu qayb ka ah kuwii halganka ku jiray, maadaama dad aan hubaysnayn iyagu ay sheegeen markaan inay diyaar u yihiin dagaalka lagula jiro al-shabaab. Ujeedka ciidamada ayaa waxaa la sheegay inuu yahay sidii guud ahaanba dhiirigelin dadkaasi ay ugu sameyn lahaayeen. Waxaana durba gobolka hiiraan ka bilowday dhaqdhaqaaqyo sidoo kale diyaargarowgii ugu dambeeyey oo ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka ee macawisleyda loo yaqaano halkaasi ay ka sameeyeen. Saraakiisha ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya ayaa iyagu waxay xaqiijiyeen in si rasmi ah howlgalka gobolka hiiraan mar kale uu kaga bilowday sanad wax ka badan oo howlgalkaasi uu dib u dhac ballaaran ku yimid. Cali Jeyte oo isagu hogaaminaya ciidanka macawisleyda ayaa waxa uu sheegay in saacadihii lasoo dhaafay howlgallo ay ka sameeyeen ciidamada deegaanka iyo sidoo kale kuwa Soomaaliya oo kaashanaya ciidamada heel walaal ee Jabuuti in duqeymo lagu dilay xubno sarsare oo ka tirsan al-shabaab iyo sidoo kale kuwo kale oo ajaaniba, sida uu sheegay Cali Jeyte. Hadal dhinacyo badan taabanaya oo ujeediya ayaa waxa uu sheegay in xaaladda goobaha lagu dagaalamay hadda ay tahay mid degan, isla markaana ay diyaar u yihiin inay sii wadaan dagaalka lagula jiro al-shabaab. Cali Jeyte isagu waxa uu tilmaamay in markaan wejiga labaad ee dagaalka ciidanka macawisleyda iyo sidoo kale kuwa ee dowladda federaalk Soomaaliya ay bilaabeen uu noqon doono mid guul weyn laga gaaro al-shabaab. Markana haddii aynu fiirino Somaliland iyo SCC Khaatumo ayaa dagaal culus waxa uu ku dhex maray deegaanka Shangeed. Warar dheeraada ayaa laga helayaa dagaal culus oo dhex maray ciidanka SCC Khaatumo iyo sidoo kale kuwa Somaliland, kaasoo ka socda deegaanka Shangeed oo hoostaga degmada Qori Lugud ee gobolka Cayn. Warar hordhac oo la helayo ayaa waxa ay tilmaamayaan in uu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay dagaalka, walow weli wax tirikoob rasmi ah aan la sameyn. Saraakiil labada dhinac oo hadashay ayaa guulo ka kala sheegtay dagaalka, iyadoo goobaha ganacsiga iyo sidoo kale isu socodka gaadiidka guud ahaanba uu hakad galay inta dagaalku uu socday. Ciidamada SCC Khaatumo ayaa sanadkii ugu dambeeyay waxa ay wadeen dagaal ay kula jiraan ciidanka Somaliland oo iyagu kol horeba ay ka qabsadeen deegaanka Laascaanood iyo sidoo kale deegaano kale oo gobolka Sool ku yaala. Waxaana hadda SCC Khaatumo iyadoo ay wadaa dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay oo ay dooneyso in deegaan horle ay kala wareegto ciidanka Somaliland. Dhinaca kale, Somaliland markaan eegno iyana waxay wadaa dadaallo badan oo ku aadan sidii guud ahaanba gacanta ugu dhigi lahayd deegaanada ka maqan gacanta Somaliland. Markaana haddii aanu fiirino ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale James Iswaan ayaa iyagu waxa ay ka wada hadleen xaaladda guud ee dalka. Marka la eego, ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta hoygiisa ku qaabilay ergeyga ku-meel gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Masar James Iswaan. Labada dhinac ayaa iska xog wareystay marxaladda guud ee dalka iyo arrimaha muhiimka horumarka oo dalka, gaar ahaan muhiimadda ay tahay in guud ahaanba dalka uu gaaro doorasho xor iyo sidoo kale mid guud ahaanba looga guuro hanaankii hore ee teendhada. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale James Iswaan ayaa si weyn looga xasuustaa kaalintii ku aadanayd
ka gudubkii marxaladii adkeyd ee dalka uu galay sanadkii 2020 ilaa 2022 xilligaas oo gudaha dalka ay ka dhacday xaalad adag marka la eego. balse markaan Roble iyo sidoo James Swan ayaa iyagu ka tashanaya sidii guud ahaanba laga yeeli lahaa xaaladda dalka. gudahaan saaxiibayaal inta ayaan kusoo koobaynaa warkii aad kala socoteen bartayda wixii nagu soo kordha kuwa soo aadan ayaad saaxiibayaal ku daawan doontaan idinkuna waad ku mahadsantiin la socodka iyo daawashada wararkayga.